الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal ilaahay baa mahad iskale marka ugu horeysa. ilaahay waxaan weydiisanaynaa niyadeenna iyo camalkeennaba inuu hagaajiyo, khaatimadeennana ilaahay suubiyo. waxaa jira xadiid uu warinayo Mucaawiya iyo Abu Darda رضي الله عنهم جميعا. الإمام حاكم ينسأي أي صارين حديث صحيحة. الإمام المنذري صحيح الترغيب كمجلد كسدحاد وكوكيني. شيخ الألباني صحيحيني. حديث رسولك صلى الله عليه وسلم حلي كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا، وفي رواية يموت كافرا أو يقتل مؤمنا متعمدا. رواية كلا وحي ترى أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. رسولك عليه الصلاة والسلام كل ذنب عسى الله أن يغفره. ذنبي والبو آذنها كدعاه هدو الله وغصو النقضو إلهي وطوبت كانوا إنه إلهي كسامح ودعي كرتا إلا إلهي وغفور رحيم وتواب توضى أقبله. لو قال لكن إلهي مسامحيه إلا الرجل يموت كافرا. ninka ama qofka gaalnimo ku dhinta oo intuu noolaan noloshiisa aan ka faa'iideysan, ama mushriknimo waa isla gaalo uune gaalnimo qofkii ku dhintaa ilaahay ma saamaxayo. ina allaha laa yagfiru an yushraka bih waman yushrik billahi faqad xarama allahu calayhi aljanna. qofkii gaalnimo ku dhintaa alla ma saamaxayo subxaanahu watacaala, aan ka toobad keenin. qofka labaadii alla aanu saamaxaynin waa qofka qof mu'minah xaq darra ku dila buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. qof mu'minah oo aanu dhiig iyo dhaqan midna kaga maqnayn, qofka kas xaq darra u dila ilaahay kaa dhaafi maayo buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. marka in islaamnimada iyo iimaanka aynu ilaashanno oo qofku waxa uu haysto ee ilaahay uu dunidan ku siiyey waxa ugu qaalisanay waa al-iimaan wal-camalu saalix. iimaanka iyo camalka wanaagsan ee Allah kugu duway subxaanahu wa tacaala. wixii caqiidadaada xumaynaya ama islaamnimadaada burinaya ama diintaada waxyeelaynaya iska ilaali oo dadaal oo taxadar oo shareecadii baro oo waxyaabaha islaamka nawaaqida ee burinaya iska ilaali oo shareecadu ay tilmaantay. islaamnimadaada ku adkow, waqti adag baa lagu jiraa oo si sahlan dadku diintoodu ay duni u dhaafsanayaan. lama huraanka asalka ahna waa inaad diin ku noolaataa, diinna ku dhimataa. wixii kale waa la heli karaa, wixii kale khasaare ah ee kugu yimaada waa laga soo kaban karaa, laakiin khasaaraha weyn aan laga soo kaban karin waa diin la-aan. haddaad iimaankaaga weydo wax kasta oo aad haysataa manfaco kuma laha, laakiin haddaad iimaankaaga haysato wixii kale ee dunida aad weydaa micno ma leh. diin la-aan wax ka weyni oo ka xuni ma jirto. sidaa awgeed baa nebigu ducooyinkiisa calayhi salaatu wassalaam yaa muqalliba alquluub thabbit qalbii calaa diinik. ducooyinka ku ducaysan jiray baa u badnayd, allaha qalbiga rogrogow, qalbigayga diinta ku sug. marka inaan horta islaamnimada iyo iimaanka ilaashano oo qofku cagta meeshuu dhigayo iyo qowlka iyo ficilkuu samaynayo uu iska hubiyo islaamnimada iyo iimaanka in wax noqonayaan iyo in kale uu haysto. qof muslima dhiiggiina inuu iska ilaaliyo, inuu iska ilaaliyo. qofka muslimka dhiiggiisa inaad ka qayb qaadato daadintiisa iyo dilkiisa iyo naftaada iyo waqtigaaga iyo maalkaaga inaad ku bixiso, aad bay badbaado weyni kuu soo hirgalaysaa. qofka muslimka haddaad xaq darre ku disho ama aad ka shaqayso dhibaatadiisa aakhira wuu ku qabsanayaa.
ila dunida nolosheedu micno badan ma leh. waqti kooban baad joogaysaayo qof walibana waqti buu leeyahay. waqtigaa ilaahay kuu qorsheeyey ma dhaafaysid. naf walibana ajal bay leedahay. laakiin waa inaad ku dadaashaa adigoo aan qof muslima dhiiggiisu iyo dhaqankiisu kugu maqanin alla inaad la kulanto, iimaankaaguna uu fiican yahay. sidaasaa nabigu u leeyahay calayhi salaatu wasalaam, kullu dembin casa allaahu an yakfirah, dembi walba alle wuxuu mudan yahay inuu ilaahay saamaxo oo dhaafo, ila arajula yamuutu mushrikan, riwaayad kale kaafiran bay tirahda, qofka gaalnimo ku dhinta mooyaane, aw irajul yaqtulu mu'minan mutacamida, ama qofka qof mu'min ah kas iyo xaqdarra u dila buu nebigu yuri calayhi salaatu wasalaam. arrintaasi waa arrin muhim ah oo xadiidkaasi rasuulka ka sugan calayhi salaatu wasalaam iyo axaadiid kale. sidaa awgeed baa wuxuu nebigu leeyahay xadiid kale salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo badan oo arrimaha ka hadlayna way jiraan, laakiin xadiidkaas un baan caawa kusoo gaabsanaynaa. as'alu allaha an yajcalana miman yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsanah. wasalaamu calaykum waraxmat